كلام وعنا وناكسن إذا لهانتين باي خيارتها هودا نقل حديداي ومركلية برامج كان فاقدة دورركا قضبضا ورركنا كما قال دونتان وحا كمدا ciidamada cafarta oo ka soo ruqaansaday Samaara caasimada deegaankaasi ayaa si weyn ugu soo wajahan furmaha hore ee dagaalka dowladda cafarta ayaa ku dhawaaqday inay weerar kaba dambaysa ay qaadayso oo gabi ahaan galbeedka City ku qabanayso sida laga baahiyay warbaahinta deegaanka cafarta madaxda Tigray ayaa ku dhawaaqay war la yaab leh oo dadka Itoobiyaanka iyo guud ahaan maamulada dadka Itoobiya dalka Itoobiya saameyn weyn ku yeelanaya iyadoo xaflad weyn lagu qabtay magaalada Makere ee caasimada gobolka Tigray ay kaga dhawaaqeen hogaamiyaasha Tigrayga war culus oo halkan ku faaqidi doono dagaal culus ayaa wali ka soconaya bartamaha dalka Itoobiya iyadoo dowladda Itoobiya ay duqeymo culus ka geysanayso deegaanka Axmaarada waqafana ayaa baahiyay maxaabiis ciidamo aad u tiro badan oo gacanta ku dhigeen qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa la kulmay cadaadiska yaabid ugu cusla iyadoo gabi ahaanba xubnihii ugu tunka weynaa ku hareeraysan Muuse ay u huleeleen dhanka Cabdiraxmaan Ciro oo hogaamiyaha xisbiga wadani dowladda Soomaaliya ayaa si weyn u difaacatay qubuuraha dhawaan la soo faagi doona ama gabi ahaanba hadda la faagaya kala cararka weyn uu ka taagan yahay iskool booliisiya ay ku taala duleedka magaalada Muqdisho ayadoo hawshu ay markale cirkaas ku shaartay bulshada Soomaaliyeed ay kacdoon weyn ay ka muujiyeen qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxa ay la qayb galaya saaxiibkay Gooni iyo Farogode ayaa ku bilaabaya Farogode soo dhawow galbeedka City wali xaaladdu sida ogsoonahay waa cakirantahay ciidamadu way soo fadhiyaan laakiin dowladda cafarta ayaa ku dhawaaqday inay guluf kama dambaysa ay qaadayso oo gudaha galbeedka City ay ku qabanayso cafarta waxaad moodaa Farogode inayna wali ka quusanin jabka ka soo gaaray galbeedka City laakiin warbaahinta deegaankaasi ayaa laga baahiyay technique aad u tiro badan iyo ciidamo halkaasi lagu abaabulay oo la leeyahay waxa loo diray galbeedka City Farogode Soomaaliya cafartuba inay ay ku dagaalamayso dhul ay iyadu leedahay sida abaabulka iyo maartay diiranaanta ka muuqata ay gobolkaasi ay ku wajahayso horta cafartu dhulka way isla haysiinaysaa oo wad la socotay oo waxa weeye muddo dheer bay ma garanaysaa ay hadal hayeen gobolka City maba ayna ka zuulinba waligood iyo Allahood inay ka dhurdurjeeyaan gobolka City laakiin arinta xiisaha leh waxa weeye in cafartu ay ku jabtay dagaaladii ugu dambeeyay oo ma garanaysaa dib weyn uu ka soo gaaray oo dhimasho iyo dhaawac iyo waliba hub far badan oo laga furtay oo dadka shacabka deegaankaasi iyo waliba aan iraahdo ciidamada maxaan ku dhahay deegaanka oo iskaashanaya qaybahooda kala duwan ay darbaaxooyin lama filaan ay ku dhufteen arinta marka maanta aan rabno in aan halkan uga sheegno kulay dowladda deegaanka Soomaalidu sirdoona waalihiin waana la socdaane in nimankii la oran jiray cafarta inay iska soo naafaqaateen teeriyaan Samaara iyo deegaanka ma garanaysaa cafarta wax alla wixii qori qaadi kareen soo qaateen inay hadda la soo shirtageen dhashiikayaal iyo hub culus iyo hoobiyaal iyo ma garanaysaa hub culus inay soo qaateen oo ay leeyihiin waxaan difaacanaynaa deegaanka naga difaacanaynaa oo gobolka City in ay leeyihiin marka waxaad moodaa in hub urursi balaaran oo meesha ka jiro waliba cafartu ay ugu tala gashay doorkan dagaalka ay qaadayso in ay meel fog ay gaarsiiso ama dhul balaaran oo Soomaaliyeed ay ku qabsato marka horta waxaan leenahay dadka meeshaasi ku dhaqan iyo ciidamaduba ha u diyaar garoobeen in ay ma garanaysaa gulufkan colaadeed ee haatan ay soo qaadayso cafartu inay iska difaacaan oo ay arintaasi dhagala'aan iyo fudayd inaysan ma garanaysaa aysan ku dhicin waxa suuragal ah in ciidamo kale oo Itoobiyaanka kale ama qowmiyadaha kale inay soo galaan baa suuragal ah sida hadda xogta aan ku helayno marka waxa weeyaan halkaas horta waxaan leenahay cafartu waxay sheegataa muslim laakiin muslimnimada qarbi kaga taagan yihiin horta Allah fahansiiyaan leenahay dadka muslimka in dalkooda iyo dadkooda iyo lagu soo duulada waxa weeye waa wax diintu ma ogola qaanuunkuna ma ogola marka cafartu waxaan leenahay dhulka idinku haysataan ha idinku filaado baan leenahay marka halkaasi dagaal colaadeed oo culus baa ka soo wajahan haddana dagaaladii ka socday waxa weeyaan dad badan baa ku dhintay oo labada dhinaca guul baan u rajaynaynaa dadka dowladda deegaanka Soomaalida maadaama ay yihiin dad isdifaacayo oo dhulkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodiiba lagu soo duulay maadaama ay yihiin aad iyo aad baan guul ugu rajaynaynaa billahi albaar wayna guuleysan doonaan Farogode waad mahadsan tahay cafartu waxay leedahay xuduudka nagu iyo meesha anaga Soomaalida xuduud ku leenahay
ما بحب ديجان ما لقوا دجال ما يو وديجان الصومالي قعدوا كجروا إن حريق وباهن وإرجع تابلي إرجع تاويلين ديجان هذا سي وأنا بحب لين حتى وهذا الكوب قال إنما ديجان هذا لقوا دجال ما سيد دايما يلون ير لوكاس وهذا الكوب قال إنما لين أيضا كل الصومالي قبل كو ودي أرسين يسكت دفاعا قبل يحكسوا كل حكي يبصوا قد بندونا إنكسر عرادو أي مرة كده بيس أي فرح كسي بحيسو الصومالي من أباب البلارن أي كجران ودي إذا ما قلت ترى بنا يدين الصومالي ده أي هالكاسي جاري ودفاع وين كجرا لوكاس دونا يعني لوكولا أي دفاعان لكن القرض اللي كري لا يوع عفرته كل ما يحكسوا كل حكي كويسة وحتى جينا مجال مكان عاصمة الجبل كتكري وقامت قصة رئيس ديان كتكري وحيكون فعلا إن الدولة توبيا كات كذا فرقدوا سيد ورقتها horta gada jureeda oo hadlay oo warisi dheer siiba lagu yiri dagaalkii la budada labada sano socday maxaad faa'iido oo guulood ka gaadheen baa lagu yiri wuxuu yiri anagu 1991 wixii ku horeeyay waxaan u dagaalameynay deegaankanaga iyo dadkanaga waan ku guuleysanay buu dagaalka anaga iyo Eritrea waaga aan ka wada soconay Ethiopia 27 sano aan xukuumayna muddo 30 sano ku dhawaan ku horkaadinaynay oo ma garanaysaa anagu aan ka talinaynay deegaankanagu uu hormarsanaa oo wuxuu ahaa buu deegaanada Ethiopia markii la ugu hormarsan qofka Tigreega laga ixtiraamo ma garanaysaa gudaha dalka Ethiopia iyo dibadba Ethiopia wax badan ma maray aad buu u faanay laakiin wuxuu sheegay dagaalka waxaan ka faa'iidnay buu yiri in wiil yar oo 47 jira oo wuxuu yiri anagu siyaasadda aan soo gelinay oo anagu darajada korneelnimada aan gaarsiinay iyo tababarka oo nidaamkanagi aan halka ku gaarsiinay in uu maanta noo yeeriyo oo dadka shacabka ee Tigreega ay dulinimo ay luqunta hoos u fooriyaan waanu diidnay buu marka waxaanu ka faa'iidnay buu yiri in maanta xisbiga TPLF uu ka wada sharaxan yahay buu yiri guud ahaan dalka Ethiopia dhaqaale far badan aan u ururinay doonayna buu yiri doorashada soo socota inaan anagu si toos ugu guuleysano iyadoo beesha caalamku ma garanaysaa ayna daawanayso waxa kale oo ku guuleysanay buu yiri in anaga wixii aan dan noo ahayn ee qoomiyadda Tigreega aan dan u ahayn inaan gabi ahaanba aan ma garanaysaa ganafka ku dhufano oo aan diino wixii dan noo aan yeelo marka waxaan ugu baqayaa buu yiri deegaanada kale horjoogayaasha inayna u duleeynin buuri ma garanaysaa tasturku tumashada iyo dhibaataynta iyo wixii anigu aan doonayo un baa socontaasi in ma garanaysaa ayna u hoggaansamin Ethiopia la wada leeyahay inay noqoto Ethiopia isku mid ah Ethiopia cadaaladda iyo ma garanaysaa xuquuqda loo sameeyay inay noqoto ayaan doonaynaa waana arinta kaliya ku guuleysanay ku tusaale qaadanayaan buuri shucuubta kale ee dalkaas Ethiopia marka aad iyo aad buu faanay waxa kaliya maanta ka haynana waxa weeyaan inaan shucuubta Ethiopia aan baray buuri in wax la diidi karo waxna la iska celin karo meel laga soo bixi karo ayaan baray buuri marka arrimahaas ay ku foolaayeen laakiin wuxuu kale oo asagana walaac ka muujiyay dhibaatadii ku dhacday dadka shacabka oo uga tacsiiyay iyo burburkii faraha badnaa ee qoomiyadda Tigreega soo gaaray ayuu shido aad iyo aad ugu dheeraaday laakiin haddaan in yar aan ku darsado waxa la yiraahdaa tudino kama tudino sidii aad dadka aad u ihaaneysatay ama aad u gashay ayaa adiguna lagu gali anigu waxaan leeyahay dhibaatada ku dhacday labada sano ee Abiye loo soo diray horta wuxuu Abiye inuu Qatar ku noqdo wax rabi ka socday buu ahaa sababtoo waxa weeye 27 sano ayay gabadha yar foodleeda Tigreega ayay shucuubta Ethiopia iyo Soomaalidaba ayay ku amartaagleynayeen deegaanka Soomaalida wada socotaa dhibaatada ay ka geysteen waxa la socotaa bahdilaada iyo dhibaatadii ay ka geysteen xilliga Cabdiyeed 270 kun oo ruux bay ku dileen jeelasha wadooga dadka mental ahaan u xanuunsanaya ee dawlad deegaanka Soomaalida ee xabsiyada soo maray iyo kuwa kale ka qaxay baa meel walba daadsan marka waxaan leeyahay Ilaahay baa uga guday baan leeyahay iyaga 1 milyan baa ka dhimatay laakiin anaga isku celcelis hadii la yiraahdo dadka ama mental problem ka qaba ama dhibaatada loogu geysay jeelasha waxaan dhihi karaa waa dad 500 kun gaaraya wixii ciidanaha ayadu dhintay meesha kama hadlayna oo ka shahiiday kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa dadka deegaanka dhibaateeyeen waxaan celcelis aan gaarsiinaya dad 500 kun oo ruuxa ayaan gaarsiinaya laakiin ayaga 1 milyan baa ka dhimatay 1 milyan waxa weeyaan mental problem bay maanta qabaan 1 milyan dhaawac bay ku dhow yihiin marka waxa weeyaan Tigreega waxa weeyaan jabka gaaray marka faankiisa laga yimaado waa jab waxa weeyaan ay iyagu farahooda ku geysay ay gacantooda ku geysteen way Ilaahay baa ka guday wixii ay ummadda ay Soomaaliyeed u geysteen teeriyo Muqdisho ay dhibaatada ka geysteen Ilaahay baa ka guday baan leeyahay marka waxa weeyaan Ilaahay waxa weeyaan waa caadil way ayyuhal ladina aamanu aayadii ahayd wad garanaysaa icdilu sabahin
يعني إن بني آدم كما قرنا يساي لو عدالة سمية قال يا مسلم بقى ووح ما قرنا يساي هدي به كوسم وقول يهي لو وضع مارتي لو ذا بهاي هيوي مركا اسكسو دودوبو تكريغو دad shabay weey tokreego waxa weeyaan dad shabay oo waxa weeye ma garanaysaa dhibaatada ayagu geysteen laga ma garanaysaa laga jisayay weey waa mahadsantahay faragodow gobolka xamaarada dagaal culus ee ka socda u dhaxay Faana iyo militariga Ethiopia dagaalku deegaano horle ayuu dib uga curtay oo gobolkaasi Faana waxay baahinaysaa markasta muuqaalo ay ugu magacdartay وجوشة جبجبة جرانة كوبان إلا جبجبيو شعب كحمارة أي كل رجال نيسو دولة إثيوبيا ولد وير بودا أو عندما عرك إثيوبيا واحد تقينا يعني جوابها إفعال كحول جندي جواب كاس بركة وين بكجري حالة المر كذا بس ويصير أصلاً يسوي ده قليها ويسوق قاتل أنا ممكن بسنين تا يورمدي بسوق قاتل مع حمارة ودجال وين كل جرت دولة إثيوبيا لكن وحياة يا كانوا حوا إنه رئيس وزراء دولة إثيوبيا دكتور أبي أحمد ولي كل رنيه ربيتان كان كبد عمر كذا بس أي حقوق حر لسوا أحيانا وحال شيء إن ذلك قدر لجارسية عطسي إثيوبيا كلمة لنا لي أنا حسن شيخ محمود كان هو كان سيان وقعد عندنا ربيتان كان نجار فرقوا أرتا سيكبر مقتل أرتا قدر وحلوجوز بيه دمبال أنجا إيو الصوماليين دحدحادية نقولنا دحدحادية بدأ عن لنا هاي مركا إثيوبيا أنا ما قرنين بير أي بد كويالتي أرنتاسي وحالي هذا أنا وحالي تدفوتيد وحلا ده كذا قرق كتاج وهذا تيان قرق كتاج ما هي وبإسكت دفاع لكن أنا ودولة الصوماليين هدوي ما قرنا سيقولون ماشي كتشوج أنا كتشوج لو وحالي لها أنا وحنودر لها عطسي يوم قرنا سيدمبال من دولة قدر ودر لها كما هذا لين زي اللي هي ديجانا كما بحلنا وحنلي لها دول كان صوماليين هي سطو تاريخ يرجع مركي قبسنا دتكي نولا بابا نولبا دتكي شوبي بابا شوبي كوني سجال بالكونتوني أفرتي وضياشي دتكي الرأي حل جات شوبي مركي أيضا وضع قرحن أي سوق جلسي يا بتشوبي مركي كوني سجال بالكونتوني أفرتي وحي كوري دول كانوا دول صوماليين بوهاي أنجي إثيوبيا نقول هذا السيا أنجي إثيوبيا كوضع حل ماينا الصومالي قلبت بان كوضع قبل كأوغاري بان كوضع كوضع حل ماينا لقهي يزيل كوضع حل ماينا لكن أن كوضع هذا اللو كان الصومالي قلبت أدقو ميستان يكون يسجل بقول كنتني أفرتي يكونني سيدي القبستان أن كوضع هذا اللو كوضع الصومالي وحويا سيدو دقال كوغرنا على كونستيوشن كون يسجل بقول تضباطني تضباطي سيد دقال لو قلي ولي كمين هالشيء الصومالي نويان وانا ضد صوماليين مركب وحويا ضد كاسي يضد كاسي صومالي قلبت هذا أنا حقوق أنا قاعد دقن وأقول الصومالي كم بدهين أنا هرت دولة الصومالي هو قال الصومالي ويقول أنا تبي استقال يا بنت مريدة أنت سبقة ميسي أنت أو استاجو وني سفورة وكسرن حياة صومالي أو كسرن حياة صومالي لكن هذه أي نقطة وحنكوض هذا زي اللي يبهاشي دمان كذا من بنات البنكوض هذا ناوي واتن بنات وحبوه ما شفتي لفت قرين بالله فرد أيضا وإلهم مرك أنا وحن لا هاي دولة الصومالية دنبالك ودراسة إثيوبيا نوها يستا زي لا يبهاشي معها قرشو حويا إثيوبيا وحان كوها يسنا صومالي قلبين أنا جا إسكال قبل كأوغارين تاريخ هام بدو سعطان منجست حيلو مريم بانو تشبيني كوبي يمن تكونفرين يبلايا إدين سو غرمتي الشرعية دي حلقة جرتي با إدين سو غرمتي لوكا أنا جا إسكال وحويا دب الصوماليين باكونول لكن إدينك وحويا ماشا واحد إدينك يالا بمجرتو مسبحين وانا اسكال لو كره waxa weeye inta yar maamulka xukuma marka waxa weeyaan dhulkan aan leenahay Ethiopia nooga gur inay Soomaaligu hanleeyo waxa la yimaada la rabaa hogaanka Soomaaliyeed ka war haduu ku sugayo xeebaha Soomaaliyeed marka haduu ku sugayo way isugu imaanday ayado oo xana qurxun iyo arkay iyadoo zeyl iyo lagu hayo maxaan ku dhaa urdaysad arkaysa waan gartay soo gartay ma marka horta madaxa Soomaaliyeed arkaas aan soo jeedinaya وانا اني ما قرص هان يشانو وحويات لكن هدي كوما ديرن كرام ما انت ما دي كرام سومالي قلبت انغا اسكال ما بدي كرام حاجه حكون عنك يوم الصومالي ما بدي كرام waxa weeye meesha joogan baba aragtaa meesha joogan baba aragtaa marka waa joog meesha joog aad iyo aad u mahadsan fadlan daawadayaal dib u mahadsantii waxaan soo dhaweynayaa mar kale saaxiibkay gooni oo inaga warbixin doona maamulkii Soomaaliland ee Muuse Biixi uu hoggaanka u hayay oo ogsoonahay inuu qalab qaadanayo doorasho ka dhacda ee Soomaaliland inay xaaladda siyaasadeed markale cirka isku sii shareertay Muuse Biixi Cabdi ayaa gabi ahaanba laga huleelay oo xoogagii ku hareeraysan ugu tunka weynaa waxay ku beereen xisbigii wadani oo Cabdiraxmaan Cirro uu hogaaminayay
dadku waxay leeyihiin Cabdiraxmaan Cirro harko cad ay doorasho ku guuleysanay waa sida haduu wax ku socdo gooniyow maxaa ugu dambeeyay sida ma santahay horta Cabdiraxmaan Cirro hadii aan laga dhicin doorashada sida ku socoto waa wax wanaagsan rajada asaga oo leeyahay aad u badan tahay laakiin in wax laga daba gediyo ama Etoobiyaanka u dhici jiray Musabixi ama xisbiga kulmiye mar walba soo saar jiray inay ka dhacaan ayaa laga baqaya waxa jira wasiiro hore xildhibaano hore dad siyaasiyiin xildhibaano hadda jooga wasiiro hadda jooga Soomaaliland ayaa dhamaantood waxay ku biireen xisbiga wadani ayuu ka baxay xisbiga kulmiye marka Muuse dhabarjab weyn ayaa soo gaaray maalmihii dambe uu la yaaban yahay Cabdiraxmaan Cirro uu yiri wuxuu dhahay xisbigayga maxad ka rabtaa waday gurnaay markaas wuxuu yiraahdaa xisbi qof aan u yeertay oo xisbiga ku soo biirdhaa ma jirto xisbigan ayaga markaas aniga ugu soo biiray marka niyo nakalawad marka halkaas xaaladu maraysa xisbiga Musabixi waa laga sii cararaya waxaana looga cararaya laba nin dictator oo meesha iska haysato iyo laba nin waa labadaas nin waxa Maxamed Kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha ee Musabixi labadaas nin ayaa meesha ku haysta midna gudoomiyaha midna musharax xisbiga ah marka gabi ahaanba waa laga sii dhamaanaya Musabixi iyo maamulkiisa waxa sii daciifanay leeyahay dhibaatada ay ka geysteen la sacanood dulmiga dagaaladii ay galeen dadkii ku xiran magaalada la sacanood faraha badan waxyaabahaasna xisbigiisa si yareynayo kalsoonida lagu qabi karo xisbiga inuu shacabka gadmo mar kale ayaa meesha ka baxaysa marka ugu gabi ahaanba waxa way hadii aysan caalamka ama Ethiopia ama wadamo kale aysan la shaqeynaynin qoladan aysan u iibinayn ama u gadaynin oo u gadinaynin oo sida marnayna sameeyeen Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo baxay sanadkan woona ku daayay Musabixi cabdi sida meesha ka muuqato waa mahadsantahay gooniyow laakiin saansaanta doorashada iyo qaabka hadda wax ku socdo iyo guddiga doorashooyinka dhammaan waxa la leeyahay Musabixi ay u janjeeraan qolada mar hadii qolooyinka maamulka haya gacanta mar walba xisbiga talada haya ayagu markaas dhinac la jira sababta xisbiga soo magacaabo markaas wax la rabaa marka meeshan waa qof iyo codka dadka tirinaayeen hadii cadaalad ka noqdaan waxay noqonaysaa in Musabixi meesha ka baxo laakiin hadii qolada ay guddiga doorashooyinka wax tirinayo hadii daacad ka noqon waxay noqonaysaa in marka maalin boqol ay ku shubato sida hadda Axmedow kale asaga doortay Saciid Cabdullaahi Dani kale doortay maamulada filan waxay fahmeen in la doorto oo qof kale oo soo bixin oo qolada kale mucaaradka la riixo maalin walba ay warbaahinta taagan leeywana la dhacay saan ma ahayn xaq ma jiro dhahay maalin walba taagan marka nin walba meesha ku dhago waxa way iskaga dhagnaado waxa way qolada kale inay waxba helin ay u agtahay shido waa maasantahay gooniyow qodobkeena ugu dambeeya dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay qayladhaanta ka taagan iyo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed muujinayaan xeradii iskool booliisiya magaalada Muqdisho dowladda qubuuri la soo saaray dowladda Soomaaliya way difaacatay leeyahay dowladda Soomaaliya waxa hadlay wasiir jaamac wasiirka maxalliga gaashaandhigga Soomaaliya wasiir TikTok asagoo sheegay in dowladda horeba nabadii nolol ay soo faagi rabtay qowrahan laakiin qaabka loo soo faagay ay kala duwaneed dowladda hore waxay ku wareejirtay dad ganacsato ah hoteelo ka dhisanayo dowladdan waxay ku wareejinaysaa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed oo badda ayuu yiraahday marka wuxuu dhahay labada marba anigu waa la shaqeynaa labada xukuumadba xukuumadda horena waxay u rabtay dad ganacsato inay siiso xukuumaddan hadda waxay u rabtaa oo dhahay in maxaa la yiraahdaa arintan ay ku wareejiso dadkii ciidamada badda marka saas kala duwanahay oo leeyahay wax dhibaato oo hadda meesha ku jiraan ma jiraan mucaaradka bomboonana arintan ayaga markoodii way raadinayaan inay markaas meesha ay wareejiyaan marka siyaasad ahaan ay u qeynayaan moogi wax ma isla wada ogaay ayuu taagan yahay waxa kale oo hadlay Shacir Wajiis wuxuuna sheegay inay jirto waqtiga Maxamed Abdullaahi Farmaajo in qabuurahaasi maxaa la yiraahdaa la soo faago walow duqii hore magaalada Muqdisho Allah naxariista Cabdiraxmaan Cumar Yiriso uu hogaaminayay oo asagu dhahay meeshan laga saaro qabuurada laakiin markaas culimadu waxay sheegeen in hadii meesha aan loo doonin danta guud aan lagu qabaneyn in qabuurada loo daayo inay soo jeediyeen culimadu laakiin markan hadda waxay leeyahay danta guud ayaa lagu qabanaya oo meel ciidamada badda la dejiyo loo baahan yahay Ethiopia soo socoto ciidamada badda oo soo bateen hadda ilaa 12 sii gaarayaan meel la dejiyo u baahan yihiin markii dhulka loo xarxar ayaa loo go'aamiyay maadaama ay badda ay u dhowdahay mar walba ay ka duuli karaan wixii emergency degdeg looga baahan yahay badda ay ka dhex bixi karaan marka wuxuu sheegay maanta in dadkii maxal dhahay Yiriso maanta ay dhahay meeshan qabuuraha laga bixiyo maanta dadka la bixinaa inuu ku jiro ayaa ayadana wax la yaab leh marka inta dhimata Ilaahay u naxariisto in qabuuraha la bixinayo dambi ay markaas dadka Soomaaliyeed ay ku sheegaan waana dambi iska cad laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ku adkaystay in qabuuraha bixi doonto qolooyinka mucaaradka oo qeylinaayeen waxay sheegeen in dadkan wax macna ay sameeyeen inay mucaarad yihiin qeylidoona cidna waxba ka soo qaadi doona u joojin doonaan gooniyow laakiin shacabku waxay leeyihiin arintan meel kale loo bedeli karo waa jiri kartay dhulku waa weyn yahay dowladdu ay ka maarmi kartay laakiin qorshahan waa qorshe siyaasadeed hadhowna isbedel weyn baa ka dhici doona dhismayaal kale loo wadaa oo ganacsiyo dalxiisayaal maxaa ka jira hawshaasi ganacsitada way jirtaa in ganacsiyo oo markaas dadka suuqa isla dhaxmarayaan inay ganacsi ay macnaha loo wado way jirtaa laakiin daarad xaqqa ma ahan leeyna markaan ku adkeysanayaan
marka inta badan waxaa jirto culaysyo fara badan oo ka imaanayo dadka shacabka iyo mucaaradka waxay leeyihiin dhamaantood hoteelo ayaa meeshan laga qodaya hoteeladaasna waxaa dad ganacsato arsi laakiin dawladdu way beeninaysaa labada dhinac marka isku dhinac socdaan mid xaqiiqo noqoto waxaan ku ogaan doonaa muddooyinka soo socdo inay dawladdu markaasi ay sida sheegtay ay noqoto oo markaasi lagu wareejiyo ciidamada badda iyo in markaasi qoladan ay sheegto qoladan kale dhahaysa mucaaradka dhahay hoteelo laga dhisay inay run noqoto labadaas mid ayaan kala xaqiijin doonaa shido aad iyo aad buu mahadsan yahay gooni daawadayaal barnaamijkii sheergaray meel fog la gaarsiiyay intaa barnaamijka barnaamij lamid ah ku kulmi doono sidaa inoo geli